السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت عشر كينا وقيبتي لبعض كورسيني كسب سنة يوتيوب كا كورسات وحيس عندهم تا متجابن وحنا كجودها دونا دمان وحول بو يوتيوب كسب سنة بالله إلى دمان. أوكي ما أنت وحنا كجهاد دونا قيبتان وحلو يقان content. أوكي دمان وما ذكرنا إنها content لكن وحربنا فاهين الإرادة idinka siiyo content wuxuu yahay waxaa fiirin doonaa content maxaa la dhahaa sidee loo dhisaa content wanaagsan. Okay, content waxaa la dhahaa informationka aad raadinaysid tusaale google markaa gashid website aad ku dhufatid waxyaabaha kuu soo baxo websitekaas informationka uu ku siiyo waxaa la dhahaa content ama warbixino kala duwan marka isu keeno waxaa la dhahaa content. Okay, content-iga wuxuu isugu jiraa marka laba qaybood. Content oo hormada ka bixinayo, content hormada ka dhigayo mid wanaagsan, iyo content hadalka ama hormada aqoonta ka dhigayo mid aan fiicnayn ama aan siinaynin information-kii ku habboonaa ee hormadaas loogu talagalay. Okay, sidee loo qoraa marka content wanaagsan? Ugu horreyn waxaad u baahan tahay diiradda inaad saarto ciwaanka title-ka topic-gaaga inay iswaafaqsan yihiin topic-ga aad qoraysid iyo content-iga uu ka kooban yahay. Tusaale waxaa ka hadlaysaa weight loss, haddii aad ka hadasho ka waran cuntooyinka loo isticmaalo weight loss-ka adoo weight loss exercise ka hadlaya haddii aad sheegtid topic-gaaga aad kaga hadashid maxaa la dhahaa cuntooyinkan haddaa cuntid waxaa kaa yaraanaya. No, waxaa u baahan tahay keliya inaad focus ka saartid weight loss exercise qof ku habboon inuu sameeyo si uu weight-ka u yareeyo. Okay, midda labaad waxaa ka mid ah make introduction u samee hormadaada. Tusaale su-aal weydii qofka yani si akhristaha yani maxaa la dhahaa aanidiis u kasbatid si uu akhristo qoraalkaaga. Okay, waxaa qoraysid mid kale ugu dambaysa waxaa ka mid ah wax adii aad qoraysid ha noqdaan yani wax xiise leh oo wanaagsan oo dadka soo jiidanaya si contactigaaga oo u noqdo mid dhammaystiran oo full information leh. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.